Gilberto Gito waa nin ka soo jeeda dalka Costa Rica ee dhaca bartamaha qaaradda Amerika waxaana sheekada ninkan ay caan noqotay kadib markii uu soo badbaadiyay yaxaas ku dhimanaya webi sanadii 1989 ayaa ninkan maalin maalmaha kamid ah sida caadada u ahayd waxa uu u shaqo tagay webi ku yaala halka uu ka kalluumaysan jiray wuxuu si lama filaana ula kulmay yaxaas dhaawaca oo biyaha hadba dhinac u heehaabaya Mr. Gito ayaa hal mar dareenkiisu isbedelay maadaama uu waa shakhsi aad u naxariis badan una jecel noocyada kala duwan ee xayawaanada ninkan ayaa go'aansaday inuu badbaadiyo yaxaaska dhaawaca ee xabadu ay kaga taalo dhafoorka balse sida aad ogtihiin yaxaaska ayaa ah xayawaan halis ah ahna xayawaanka ugu qaninyada kulul noocyada kala duwan ee xayawaanada Mr. Gito ayaa u soo degdegay magaalada wuxuuna soo watay saaxiibadiis si ay ula soo badbaadiyaan yaxaaska ugu dambeyn waxay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan yaxaaska oo naf liidata ay ku jirto aadna u dhigbaxay ninkan ayaa yaxaaska keenay gurigiisa wuxuuna la tacaalay caafimaadkiisa ilaa markii dambe uu caafimaado wuxuuna ugu magac daray Bojo xilligaas kadib ninkan iyo yaxaaska waxaa ka dhex bilaabatay saaxiibtinimo aan caadi ahayn taasoo xitaa gaadhay kalsoonida in ninkan uu madaxiisa gashto yaxaaska afkiisa waxaana muddo badan oo waqtigiisa ka mid ah uu ku bixiyaa inuu la ciyaaro yaxaaskan uu noloshiisa badbaadiyay waxaa sidoo kale ninkan uu ka soo qaatay warqad dowladda Costa Rica waxaana loo ogolaaday in yaxaasku uu kula noolaado gurigiisa maadaama sida caadada ah aan la ogolayn in xayawaanada khatarta ah la dhex keeno bulshada dhexdeeda iyo magaalooyinka sheekada ninkan iyo yaxaaska ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha caalamka waxaana maalin kasta guriga ninkan booqda kumanaan qof oo u soo daawasho taga ciyaarta saaxiibtinimo ee ka dhaxaysa isaga iyo yaxaaskiisa muddo sanada kadib markii yaxaasku uu ku soo biiray qoyska ninkan xaalku waa isbedelay kadib markii yaxaaskiisa ay ka masayrtay waqtiga badan ee saygeeda uu la qaato yaxaaska iyo jacaylka uu qabayntaba warbaahinta ka soo baxda wadankaasi Costa Rica ayaa ku waramaysa in ninkan xitaa habeenkii uu la seexdo yaxaaska isla markaana isku goob ay seexdaan haweenaydiisa ayaa masayr daran ka qaaday nolosha saaxiibtinimada ku dhisan ee ka dhaxaysa yaxaaska iyo saygeeda waxaana ugu dambeyn gabadhu ay codsatay in la furo iyadoo markii dambena saygeedii uu go'aansaday in yaxaaskiisa uu furo Mr. Gilberto Gito ayaa hadda guursaday yaxaas kale waxaana qoyskiisa ka mid ah yaxaaskan uu badbaadiyay muddo hadda laga joogo 20 sano ka hor